Leave a thumbs up if you like any videos, then subscribe the channel and press the bell icon to watch more latest videos very faster. bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan qodobada wararka risaalo saakidin heesa dhegeystayaal waxaa ugu waaweyn madaxweyne farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada oo maanta soo gabagabeynaya shir uga socda magaalada Garowe madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya oo deegaanada Puntland ka wada kulamo siyaasadeed oo taageere ugu raadinayaan xisbiyadooda alqaacida oo ka hadashay weerarkii al-shabaab ay ka fuliyeen dalka Kenya dowladda Kenya oo lagu eedeeyay inay sii deeyso al-shabaabka ay ku qabato howlgallada ay ka sameeyaan gobolada Jubbooyinka iyo Gado al-shabaab oo soo bandhigtay gaadiid iyo hub ay ku qabsadeen weerarkii ay ku qeedeen xerada Baar Sanguuni maamulka gobolka Gado oo sheegay duqeymaha ka dhaca gobolka inay khasaare badan ka soo gaaraan dadka shacabka dowladda Kenya oo dhalishay howlgallada Amisom ee Soomaaliya doorashada kursi kamid ah golaha shacabka oo maanta ka dhacaysa magaalada Baydhabo gudoomiyaha degmada Jallaqsi oo sheegay inay yaraatay awoodda al-shabaab ee gobolka Hiiraan iyo madaxa hay'adda cunnada adduunka qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen oo ka digay xaaladda sii xumaanaysa ee bini'aadanimo mar kale dhageystayaal subax wanaagsan intii aad maqasheen qodobada risaalo ugu waaweyn ayay ahaayeen u diyaar garoobo warkii oo saakintaas ka faahfaahsan waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay 28 bisha koowaad sanadka 2019 maxamed Abuukar Dabaasha ayaa soo saaray warka subaxnimo aynu ku bilaabanay madaxweyne farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada ee dalka ka jira ayaa maanta soo gabagabeynaya shir uga socda magaalada Garowe dhinaca kalena madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayaa deegaanada Puntland waxa ay ka wadaan kulamo siyaasadeed oo taageere ugu raadinayaan xisbiyadooda maxamed Abuukar Dabaasha ayaa ka waramaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xalay ka qayb galay casharaf uu sameeyay madaxweyne dani asaga iyo waliba madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynayaashii hore oo wali ku sugan magaalada Garowe waxaa inta barbar soconaya kulamo gaargaar ah madaxdu ay ku yeelanayeen magaalada Garowe kulanka ugu waqtiga dheeraa oo ka dhacay shalay magaalada Garowe ayaa madaxweynaha Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada iyo waliba madax kale oo madaxweynayaashii hore ah oo ay ku wada qateen magaalada Garowe shirkaas ayaa waxaa ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada dalka madaxweynayaashii hore gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ku-xigeenadiisa iyo waliba madaxweyne ku-xigeenada maamulkaasi Puntland go'aanada ka soo baxay shirkaas ayaa waxaa ka mid ah laba qodob oo ay ku heshiiyeen in xal laga gaaro khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo in shir ka dhaco magaalada Muqdisho shirkaas oo ay Muqdisho ay ku kulmayaan madaxda maamul goboleedyada iyo waliba madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha ayaana laga sugayaa inuu ilaamiyo waqtiga rasmiga ah ee shirka Muqdisho uu ka dhacayo inta kadib waxaa xigay kulamo kale oo gaargaar ah oo waliba kulan waqti badan qaatay oo xalay mar kale ay ku yeesheen magaalada Garowe madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada u gaarka ah ayaguna ka wada hadlaya xalinta khilaafka iyo waliba kala aragti duwanaanshaha ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya madaxdii hore ee dalka oo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ina dhankooda magaalada Garowe waxay ka wadeen kulamo siyaasadeed oo taageero ugu raadinayaan xisbiyada ay madaxda ka yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo la hadlayay ardayda jaamacadda Garowe waxa uu ka hadlay caqabadaha siyaasadeed ee mararka qaar ay wajihi karto dowladda federaalka Soomaaliya asaguna ku taliyay in mar walba loo baahan yahay in la isku tanaasulo ayna imaan karaan caqabado siyaasadeed oo ugu horeeya in la dhaliilo ama la mucaarado dowladda federaalka Soomaaliya axzaab siyaasi ah nidaamku waa isbedelaya axzaabta siyaasiga marka inaad practice ku sameeyeen oo aad ka mid noqotiin waa laga maarmaan taasna waxay keenaysaa marka aad mas'uuliyad qaadayseen berito adinkoo bisil inaad mas'uuliyadda qaadin oo dawladdu marka aysan nooga burburin si doqonnimo waxaad ogtihiin qofka Soomaaliga waxa aad ugu adag tanaasulkuna waa shay muhiim ah sheekayana rabaa inaan idin sheego aniga inta madaxweyne ahay laba yani mashaakilkii ugu badnaay nin hadda aan aad saaxiib u nahay oo xaafadiisa aan degana yaa igu daraa dadkii mucaaraday ma garateen markii arrintii aan fiiriyey dad badan waxay igula taliyeen inaan dhinac maro oon anna Puntland dhinacayga ka galo marka waxaan ku yiri maya albaabkaan ka galaynaa iska daaya wada hadallo dheer kadib kulamo badan kadib
waa qofka ugu saaxiibsanaa hadda asaga kaliya maahay qoyskiisoo dhan qolada labaad waxay ahayd ahlusunna waljamaaca ayaguna dhuunta ay fadhiisteen wadahadal dheer kadib waxay noqotay dadkaan isugu fiicanna inay noqdaan taas macnaheedu waxa waaye qofku inuu kaa fikri duwan yahay mushkilad ma aha laakiin waxaa lagaa rabaa inaad ka fikirto sida aad isku fikir u naqi kartiin marka arrinta isu tanaasulka iyo is-ixtiraamka waxay muhiim u tahay dowladnimada maanta meeshaan aan joogo sababkeeda koowaad bacd allaahi tabaaraka wa tacaala farolaa iska lahay waxaana ka dhaxlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa lagu wadaa in maanta uu soo gabagabeeyo kulamada magaalada garowe uu kula qaadanayo madaxda maamul goboleedyada iyadoona lagu heshiiyey in magaalada muqdisho ay isku yimaadaan labada dhinac ayna ka wada hadlaan xalinta khilaafka madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaana la filayaa in islagelinka hore maanta ay kasoo ambabaxaan magaalada garowe sidoo kale magaalada ayaa waxaa ku sugan xubnaha ayna xisbiyada hogaaminayo qaarkood mucaarad ku ah dowlada federaalk soomaaliya kuwaas ayna halkaasi ka wada ololo ay taageero ugu raadinayeen xisbiyada ay madaxda ka yihiin. al-qaacida ayaa waxay ka hadashay weerarkii ururka al-shabaab ay ka fuliyeen dalka Kenya. dhinaca kalena dowladda Kenya waxay dhaleeshay howlgalka Amisom ee ka socda gudaha Soomaaliya. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa soo koobaya. ururka al-qaacida ayaa war ka soo saaray weerarkii dhowaan al-shabaab ay ku qaadeen magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya hotel ku yaala halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 22 qof. war ka soo baxay al-qaacida ayaa lagu sheegay in howlgalkaas ay soo dhaweynayaan sida uu dhacay isla markaana cid kaste oo Kenya dalalka reer galbeedka dagaal kula jirta ay soo dhaweynayaan taageero buuxda ay siin doonaan. al-qaacida ayaa mar kale ku celisay in weerarkaas uu jawaab u ahaa go-aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump magaalada Qudus uu aqoonsaday inay tahay caasimadda Yuhuudda. waxaan taageeraynaa oo aan barakeynaynaa howlgalkii Qudus ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ururka al-qaacida. warka ayaa lagu sheegay in howlgalkaas ay fuliyeen 4 ka mid ah ciidamada lagu magac daray Jaysal Usra oo ah ardaydii Saalax al-Nahmaan waa sida ay sheegeen ururka al-qaacida isla markaana qayb ka ah dagaalyahanada al-shabaab. dhanka kalena dowladda Kenya ayaa ku boorisay qaramada midoobay inay maalgeliso howlgalka la dagaalanka al-shabaab ee ka jira Soomaaliya iyadoo ku doodeysa intan ay xoojinayso ciidamada Soomaalida iyo waliba ciidanka Kenya inay helaan awood ay kaga adkaan karaan shabaab. Ogayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Kenya Abu Mumama ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xakameeyo qidmooyinka maaliyadeed ee soo gala waxa ugu yeeray kooxaha argagixisada taas beddelkeedana qaramada midoobay looga baahan yahay inay taageero dhaqaale ay siiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan u baahanahay inaan ogaano inay muhiim tahay in xaaladda Soomaaliya maanta ay ku sugan tahay awoodaha dhanka ciidanka ah markaan qaramada midoobay waa inay taageero siisaa Soomaaliya si loo helo dhaqaale lagula dagaalamo argagixisada ayuu yiri Abaabo Namama. waxa uu aad u dhaliilay howlgalka midowga Afrika ee Amisom oo uu sheegay inuu ka gaabiyay shaqooyinkii lagu talagalay inay ka qabtaan Soomaaliya taas beddelkeedana ay ka fiirsanayaan ciidanka Amisom dhaqaalaha ay ka helaan qaramada midoobay ayna doonayaan in dhaqaalahaas uu iska socdo muddo badan laakiin aysan doonayn inay ku bixiyaan taageero isugu jirta dagaal iyo waliba mid tababar ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Kenya ayaa qaramada midoobay ku booriyay inay wax badan ay ka bedesho howlgalka Amisom ee xilligan ka soconaya Soomaaliya maadaama dani aysan ugu jirin dalalka Kenya iyo waliba Soomaaliya oo inta badanba uu ka socdo dagaalkii weerarada ay fuliyaan dagaalyahanada al-shabaab. gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in yaraatay awoodda al-shabaab ee gobolka faahfaahinna waxa uu ka bixiyay howlgallo ka socda degmada Jalalaqsi. Cali Xasan Cali ayaa faahfaahinaya warkan. gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Maxamed Nuur Cagajoof oo la hadlay idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab wax awood aysan ku lahayn degmada uu ka arrimiyo. waxa uu sheegay inay joogaan meel banaanka degmada ah halkaasna ay kasoo ridaan rasaas yaryar dhowaana ay kala wareegi doonaan meelaha banaanka ah uu sheegay inay ku sugan yihiin. sidoo kale waxa uu intaa ku daray in awoodda ugu weyn ee al-shabaab ay leeyihiin ay tahay in ciidamada ay u galaan wadooyinka balse iminka ay jiraan qorshooyin lagu doonayo in gebi ahaanba looga saaro meelaha ay kaga sugan yihiin gobolkaasi Hiiraan. haddii awoodooda ay muuqato inay
ciidamo ay maraan 9 kilomitir 9 kilomitir ay Jowhar iyo Jalaf ku jirto Bulburta 60 kilomitir iyo Bulburta iyo Jalaf ku jirto wadada ay taagi waayaan in wax soo tuuraan maana taas awood hadda kulli lagu faani karay maanta al-shabaab hayaan mala degmooyinka Soomaaliya kamid ay maanta ku sugiin ma jirto marka awood muuqato hadda aan ku sheegno ma jirto waa tuuga duurjoogta kamid aan leenahay waana la ciribtiri doonaa bismillahi kariim أبغى أعرفها إن نربي حقيقة دبكة القاعدة هي دولة الصومالية القاعدة هي مع مزولة هي عندما نريد أفريقيا السعودية أمازون وحيالها هي لو دريم كتا من الربح حالة من السرين صورده القاعدة لكن تلك مال ما كملها واللي سيدين يعني سنة ولا والدي دونها ونحن عاطوا دين الإسلام كان بين كشاك دبكة الصومالية سيفوا دي دين تودا كديرة مرجع جروا العشاء من الكل ما واحد الذي جي قوشة استراتيجية أو دقال أو قبل كقبل أبناء أغيدي runtii arrintaas waa arrin hadda maanta taabageli doonta haddii ila yidhaahdo adag milisiriin aniga mar raba inaan ka hor dhaco runtii waxaan kuu sheegayaa laakiin waxaad indhahaada ku arki doonto xaqiiqda dhabtaana oo muuqdo si cad oo muuqdo aad u baahi doontaan guudan gudihiisa faraha kaa saari doona haddii ammaanada hadladi 26 bishan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa Amisom gaar ahaan ciidamada dowladda Djibouti ee uu fadhiisinkoodu yahay degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan ay dhex u galeen al-shabaab kadib markii kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamadaasi ay tageen gobolka Shabeellaha Dhexe balse markii ay ku laabteen degmada Jallaqsi ay la kulmeen weerar ay ku soo qaadeen xooga ka tirsan al-shabaab dowladda Kenya ayaa lagu eedeeyay inay sii deysay al-shabaabka ay ku qabato howlgallada ay ka sameysay gobolada Jubbooyinka iyo Gado dhinaca kalena maamulka gobolka Gado ayaa sheegay duqeymaha ka dhaca gobolkaas inay khasaare badan ka soo gaarto dadka shacabka sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Axmed Tifo Xasan gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Gado Cismaan Nuur Xaashi ayaa sheegay in uu xiriir wanaagsan kala dhaxeeyo sirdoonka dalkaasi Kenya xogaha la xiriira dhanka sirdoonkana ay isdhaafsadaan si loo qabto ayuu yiri kooxaha doonaya in falalka ka baxsan ammaanka ay goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda dalkaasi Kenya iyo kuwa maamulka Jubbaland ay ka geystaan waxaana uu ku eedeeyay dowladda dalkaasi Kenya in ay sii deysay xubin ka tirsan al-shabaab oo ay xog ahaan ay u siiyeen sirdoonka dalkaasi Kenya in markii dambe ay sii daayeen dibna uu dagaal ugu soo qaaday ciidamada maamulka Jubbaland Cismaan Nuur Xaaji ayaa xusay in musuqmaasuq badan uu ka dhex jiro hay-adaha sirdoonka dalkaasi Kenya isagoona ugu baaqay in ay ka fogaadaan si loo xaqiijiyo amniga labada dhinac xitaa hadda ka hor waxaan suurto gelinay qof gudaha Kenya ku jira oo al-shabaab ah inaan xogtiisa siino si ay u soo qabtaan cadowgaas meesha loogu qabto barnaamijkana waa suuro galay oo waa la qabtay laakiin waxaysan suuro gelin cadowgii in xariga uu ku sii jiro ama in maaragtay maxkamad la saaro ma aysan suuro gelin dib xorriyadiisa ayuu u helay wuxuuna maaragtay u suuro gashay in dib dambe uu soo dagaalamo marka anagu warbixintaas iyo in cadowga gudahooda galayo mar walba waan ku dadaalnaa haddana waan ku dadaalkana way suuro geli kartaa laakiin waxaan leenahay dowladda Kenya in arrimaha la yiraahdo musuqmaasuqa iyo corruptionka ku jiro oo cadowga markii la qabto laga yaabo in lacag uu ku fakado in arrinka ayaga naftarkooda iska soo dhisaan sirdoonkooda iyo shacabkooda in cadowga gacanta lagu dhigay uusan dib dambe u baxsan ay ku dadaalaan dhanka kale Cismaan Nuur Xaaji gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado ayaa xusay in duqeymaha ay ciidamada dalkaasi Kenya ay ka geystaan deegaanada maamulka Jubbaland ay ka dhashaan khasaare soo gaara shacabka ku sugan goobaha ay duqeymahaas ay ka dhacayaan waxaana ugu baaqay inta aysan soo qaadin duqeymaha dhanka cirka ah xilliyada ay doonayaan in ay ciidamada dowladda dalkaasi Kenya ay la beegsadaan ururka al-shabaab ay ku soo wargeliyaan si ay u yaraato shacabka khasaaraha soo gaara dowladda Kenya mararka qaarkood waxaa ka dhaco duqeymo oo xogtoodu aysan nala wadaagin maamulka gobolka haddaan nahay mararka qaarkoodna ay ka dhacdo tacdiye loo geysanayo shacabka Soomaaliyeed xoolaheedii kuwa ah oo baadiyaha degan arrimahaas oo kale cadowga markasta meelaha ay joogaan annaga ayaa xogta heli karno deegaanka u dhalanay inay su'aalooyin naga weydiiyaan markasta operation ay fulinayaan oo ay nagala tashtaan ama annagu xogta aan siino way ku guuleystaan shacabkana way ka badbaadaan arrimahaas in sidaas ay noogala shaqeeyaan cadowgana la naafeeyo shacabkana la badbaadiyo
ayaan uga baaqaya dowladda Kenya inay nagala shaqayso annagana waxaan u diyaarsannahay. ciidamada dowladda dalkaasi Kenya ayaa ku sugan deegaanada maamulka Jubbaland waxaana ciidamada maamulkaasi ay ka caawiyaan dagaalka lagula jiro al-shabaab iyadoo mararka qaarkeena ciidamada dowladda dalkaasi Kenya duqeyn dhanka cirka oo aysan cidna ogeysiinin ay ka geystaan deegaanadaasi iyadoona ay ka dhashaan khasaare soo gaara dad shacab ah. ugu dambeyn dhegeystayaal madaxa hay-adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen ayaa ka digay xaaladda sii xumaaneysa ee bini-aadanimo. waxa uu sheegay xaalad adag oo bini-aadanimo inay ka jirto guud ahaan dalka Yemen. waxa uu ku baaqay in xaaladda ka jirta dalka Yemen oo labada dhinac iska soo horjeeda ay dejiyaan maadaama ay ku baaba'ayaan dadka shacabka. waxa uu sheegay in hay-adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen ay cuntooyinka meelay u marsiisa ay la-dahay dadka ku go-doonsan meelaha qaar. guud ahaana dhegeystayaal warkii subaxnimo saaka waa naga intaa cid waseegaana dib waxuu kaga heli karaa webpage-kan internetka ku leenahay ee ciwaankeena uu yahay radio-risala.com. shirkadda xisaabaadka